Turkiga waxa uu qaaday tallaabo xooggan oo la xiriira in uu sameeyo nidaamyada difaaca hawada Soomaaliya oo waliba si degdeg ah arrintaas looga horgalayo. Ujeedku waa in laga hortago weerar walba oo dunida ka imaan kara maadaama ay jiraan wadamo fara badan oo ku hoos gambanaya dalalka colaadda ka socota bariga dhexe kuwaas oo raba in ay dunida qas iyo jahawareer adag ay geliyaan. Waxay arrintaasi sababtay in xukuumadda Ankara dhigeeda Muqdisho ay ku gacan siiso qaabka ugu fudud ee laga hortagi karo arrimahaas iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya ay qaaday tallaabo xooggan oo arrintaasi la xiriira. ila kala duwan ayaa dhanka kale warbaahinta Xuraasi waxay u sheegeen in maalmihii la soo dhaafay ay socdeen dhaqdhaqaaqyo xooggan oo la xiriira arrintan iyadoona saraakiisha iyo mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya durbaba ay bilaabeen inay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo culus oo arrintaasi ka dhan ah. ilahan ayaa dhanka kale waxa ay sheegeen in ay socdaan isku dayo kala duwan oo ay ku doonayaan qaabka ugu fudud ee looga hortagi karo in jawaab culus laga bixiyo weeraradan iyadoona sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa cabsi xooggan ay ka qabto in dib u dhac ballaaran uu ku yimaado marka la eego nidaamka qodista iyo soo saarka shidaalka Soomaaliya mar haddii marinkii badda ee dunida inteeda badan uu istaagay ganacsi iyo isu socodka kalena arrinta uu saameyn ku yeeshay. ilahan ayaa dhanka kale waxa ay sheegeen in maalmihii u dambeeyay ay socdeen dhaqdhaqaaqyo xooggan oo la xiriira arrintan iyadoona marinka ugu muhiimsan ee Hormuz ay saameyn weyn ku yeelatay marka la eego maraakiibtii kala duwanaa ee caalamka halkaa mari jiray si gaar ah kuwa saliidda iyo shidaalka qaada. ilahan ayaa dhanka kale waxa ay sheegeen in maalmihii u dambeeyay ay socdeen dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ku saabsan arrimahaasi jira iyadoona mas'uuliyiin iyo xubno kala duwan ay durba bilaabeen in ay sameeyaan isku dayo kala duwan oo la xiriira arrimahan waana midda keentay in ay socdaan howlgallo kala duwan oo ka dhacaya dhanka bariga dhexe. Soomaaliya ayaa wada dhaqdhaqaaq xooggan oo arrimahaasi ka dhana taa oo keentay in mas'uuliyiinta iyo xubnahanba ay sidoo kale ay bilaabaan dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyay oo ay ku gaarayaan hadafka ama ujeedka ugu weyn ee arrimahaasi la xiriira. mas'uul ka tirsan dowladaha Soomaaliya waa mas'uul ka tirsan dowladda Turkiga waxa uu sheegay in dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga arrimahan si guud iyo si gaar ahaaneed ay uga wada hadleen iyadoona xukuumadda Ankara markan ay doonayso in ay tiirar adag u sameyso dhanka amniga Soomaaliya. qalabka casriga diyaaradaha Turkiga uu geeyo gudaha Soomaaliya iyo waxyaabo kale oo loogu talagalay in shidaalka lagu qodo Soomaaliya ayaa markaan la doonayaa in la ilaaliyo si loo adkeeyo tallaabadaasna dowladda Turkiga waxay xiraysaa gantaalo casri ah oo ay ugu talagashay in ay ka sameyso dhanka iyo gudaha Soomaaliya kuwaas oo looga hortagay ama looga hortagayo in ay jawaab cadna ka bixiyaan haddii la isku dayo in meelaha muhiimka Soomaaliya iyadoo lagu soo hoosgambanayo xaaladda bariga dhexe ka socota in lagu beegsan karo. taasi waxay abuurtay in dhaqdhaqaaqyo xooggan oo dhanka siyaasadda ah ay sii kordhaan iyadoona dunida xasiloonideedu ay aad ugu sii dartay. warar soo baxaya waxay tilmaamayaan in maalmihii u dambeeyay ay jireen dhaqdhaqaaqyo xooggan iyadoona saraakiil iyo mas'uuliyiin kala duwan durba ay bilaabeen in ay sameeyaan dhaqdhaqaaqidaasi iyo qaabka ugu fudud ay arrintaasi ay ku miro dhali karaan. saraakiil iyo mas'uuliyiin ayaa hoosta ka xariiqay in markan ay doonayaan qaabka ugu fudud ee looga jawaab celin karo iyadoona saacadihii u dambeeyay ay soo kordhayeen xaaladahaasi guud waxaana mas'uuliyiin iyo xubno kala duwan ay tilmaameen sidii loo bilaabi lahaa guud ahaan howlgallada iyo dhaqdhaqaaqyada guud ee ka socda dhanka bariga dhexe oo markaan ku sii fidaya dhanka iyo geeska Afrika. mas'uuliyiintan ayaa waxay dhanka kale tilmaameen in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo guud oo ku saabsan in la ogaado dhammaan xogahan ka socda geeska Afrika iyadoona Soomaaliya ay markaan doonayso in ay indhaha la raacdo xaaladaha cusub ee ka soo kordhaya dhanka iyo gobolka maadaama Iiraan ay sheegtay inay beegsanayso dal walba oo loo arko in uu si guud iyo si gaar ahaaneed uga shaqeyn karo arrimahan hadda socda sida wararka iyo warbixinada la helayo ay sheegayaan.
mas-uuliyiintan ayaa dhanka kale waxay tilmaameen in maalmihii u dambeeyey ay socdeen dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira dhanka iyo Soomaaliya howlgallada ka socda, taasoo keentay in ay mas-uuliyiintan dowladda federaalk Soomaaliya ay bilaabaan abaabul xooggan oo ay kaga hortagayaan dhammaan macluumaadkaasi, taa oo keenaysa in xubnahan ay markaan ay si guud iyo si gaar ahaaneed ay u ogaadaan in la ogaado xaalad walba oo dhanka Geeska Afrika. Soomaaliyana waxay markaan quwad ahaan ku tiirsan tahay Turkiga oo sameynaya dhaqdhaqaaq kala duwan oo arrintaas ku saabsan. Wixii warar iyo dhacdooyin arrimahan ka soo kordhaa baahintiina tan xigta ee warbaahinta Xuraansi ku daawo. Waad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socodka wararkayga.